Jamaal Xuseen Daahir ayaa hore u ahaa xoolo dhaqatada deegaanka degmada Salaxley balse iminka waxa uu ka mid yahay beeraleyda wax soo saarka dalka. Waxa uu qayb ka ahaa 60 qoys oo ka faa'iideystay mashruuca ay iska kaashadeen Wasaaradda Horumarinta Beeraha Jamhuuriyadda Somaliland iyo hay'adda GIZ kaas oo lagu maalgelinayay dadkii xooluhu ay kaga baxeen abaarihii dalka ka dhacay sanadihii 2016 iyo 2017. Anagu markayga hore waxaanu haan jirnay xoolo dhaqato. Dabeetana abaaraa dhacay dhulkii xooli baa dhamaaday nabaad guur baa dhacay markii xoolo dhamaadeen waxaanu bilownay inaanu dhirta garaacno anagoo dhirta garaacayna ayaa ilaahay noo keenay hay'ad GIZ leeyahay iyo wasaaradda beeraha oo socda dabeetana waxayna bareen nidaamkii dhulka wax looga soo bixi lahaa sa greenhouse-ka maanta hoos fadhino kale iskaashatooyin baa la abuuray iskaashatooyinkii way shaqeeyeen waanu ka faa'iideysanay muddo badan kadib waxaanu ogaanay dhulku inuu ka faa'iido badan yahay waxyaabihii xoolihii markaas sidaa daraaddeed marka waxaanu wax soo saarnaa tamaandhada barbarooniga wax kasta waanu beeranaa Ali Cabdillaahi oo agaasimaha waaxda fidinta ee Wasaaradda Horumarinta Beeraha Somaliland ayaa sharaxaad ka bixinaya mashruucan iyo xilligii bilowday. Mashruucani wuxuu ku bilaabmay 2016 ilaa 17 sida idinku warqabtaan wadanka waxa ka jirtay oo ka dhacday abaar baahsan magaalada Salaxley waxay kamid ahayd dhulkii ay abaartu saameysay iyadoo taa laga duulayo ayay Wasaaradda Horumarinta Beeraha iyo xafiiska hooyada dhalaanka ee hay'adda Jarmalka Hargeysa ayay waxay qoondeeyeen mashruucan si kor loogu qaado nafaqaynta hooyada iyo dhalaanka iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada cusub ee beeraha gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaan guryaha dedan greenhouses-ka. Haddaba maxaa lagu maalgeliyay iskaashatooyinka beeraha ee degmada Salaxley? Cumar Warsame oo kamid ah koox iskaashato ah oo ka kooban 15 qoys ayaa ka waramaya. Anagu imaka aanu hayno waxa kamid ah waxana loo qoday balligaasu balliciisa waxa weeye waa 40 mitir iyo 20 mitir iyo waxa weeye 4 mitir oo hoos waxa uu qaadaa 16,000 oo foosto oo biyo ayuu qaadaa. waxa kaloo halkan nooga dhisan 3 greenhouse ee beerana imaka aynu ku jiro mid kamid ah open field-kii ama dhulkii furaa oo isna tuumbooyinka ay yaalaan iskaashatada inta loo qabtay markii hore waxa weeye intaas ay ahayd. Cabdiqaadir Maxamed Ismaaciil waxa uu kamid ah howlwadanadii Wasaaradda Horumarinta Beeraha u qaabilsanaa in deegaanka degmada Salaxley laga aasaaso iskaashatooyin beeraley ah ayaa noo sheegaya markii hore in ay la yaabanayeen beeraleydan beerahan laga sameynayo deegaanka degmada Salaxley maadaama ay ahaayeen xoolo dhaqato waxay 60 qof haystaan oo maxay haytay mashruuc uu sameeyay 12 greenhouse 4 dam runtii waxa markii hore way adkayd inay dadku aad bay ula yaabanayeen laakiin gacanta lagu hayay macna waxa weeyaan wixii farsamo oo dhan waa maxay haytay waa gacanta lagu hayay waa laga caawinayay ilaa markii dambe wax soo saarkii gaadheen ay aad ugu qushuuceen waxay kala soo bixeen tamaandho waxay la soo bixeen basbaas waxay la soo bixeen barbarooni waxay la soo bixeen khiyaar waxay la soo bixeen binigaal waxay la soo bixeen salad nooc kasta oo qudaar oo la beero xabxab waxa weeyaan way beerteen. Xasan Xuseen Daahir oo kamid ah dadka deegaanka degmada Salaxley isla markaana hotel ku haysta cunto ayaa noo sheegay in beeraleyda deegaanku ay ku filnaadeen khudaartii ay ka soo iibsan jireen magaalooyin ka fog deegaanka. Qudrada bariga hore dhibaato fara badan ayaa naga haysatay markii ay Hargeysa nooga iman jirtay baabuurku mar uu la dhaxo mar uu la jabo mar uu dheeri la galo alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin imika wixii aanu baahnaba beertii baan gelin lahayn ka soo goosanay iyadoo daraya. Beeraleydan ayaa waxay wax ku beeraan dhibaca roobka iyo labadii sano ugu dambeeyay waxay khudaarta ka soo baxday deegaankaasi caasimadda Somaliland iyo degmada Salaxley waxaana Wasaaradda Horumarinta Beeraha Jamhuuriyadda Somaliland ka codsadeen nidaamkan cusub ee iskaashatooyinka aad iyo aad u muhiim u yahay intii hore deegaanka loo sameeyay way ku aflixeen wax soo saar fiican bay ka heleen in loo balaariyo in biyaha loo qabto in nidaamkan beerta fidin tan tuumbooyinka la dhiga beerta fidsan in loo kordhiyo. Waxaanu ka codsanaynaa Wasaaradda Horumarinta Beeraha inay waxa weeye maadaama uu mashruucan noqday mashruuc dhaxalgala oo waxa weeye dhulkiina deegaankiina badbaadin kara in waxa weeye ay balaariso ayaanu waxaanu ka codsanaynaa Wasaaradda Horumarinta Beeraha.
Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur, Telefishinka Qaranka Somaliland, deegaanka